Waan ku salaamay saaxiib. Haddii aan ku weydiiyo waxa kaa dhiman ee kuu diidaya inaad dadka kale la tartanto, waxaan ku leeyahay oo horta yaa kugu yidhi waa inaad dadka la tartantaa. Noloshu waa hayaan ee maaha tartan wiilow ee ku raaxayso oo ha u rogin goob dagaal. Jidka qudha ee u qalma inaad ku tartantaa waa jidka jannada. Waxaan isaga ahaynina waa dagaallo lagu guuldarraysanayo iyo tartan abbaar iyo ujeeddo lahayn. Diinka iyo bakaylaha tartamay labadooduba waa doqomo. Dhadhan nooc ma ah ayay yeelanaysaa bakayluhu inuu tartan kaga adkaado noolaha ugu gaabiya caalamka. Diinkuse muxuu galayaa tartan uu ogyahay qaabka qudha ee uu ku guulaysanayaa inuu yahay inuu bakayluhu seexdo qalbigaaga nadiifi saaxiib. Dadka kale guushooda ugu farax sidii ay guushaada tahay, ugu sacabi dadka libinta gaadha sidii aad naftaada ugu sacabin lahayd. Ku farax heshiiska faa'iidada leh ee uu ganacsada sameeyo sidii aad heshiiskaa gashay. Shaqada marka uu helo deriskaagu ugu farax sidii aad adigu heshay. Inaad u fiirsato waxyaabaha ay dadka kale haystaan waa fallaadh samaysan oo qalbigaaga ku dhacaysa ka hor inta aanay dadka kale haleelin. Saaxiib badiba waxyaabaha aynu ugu yeedhno tartanku waa xaasidnimo la asturayo oo aynu u bixinay magacan ah tartan si aynu isugu qancino inaynu ku jirno dagaal loolan ah oo u qalma in la galo. Si wacan u xasuusnow in xaasidnimadu tahay dembigii ugu horreeyay ee Ilaahay lagu caasiyey samada intii la joogay, oo waa kii Ibliis diiday inuu aadan u sujuudo. Cudurdaarka keliya diidmadiisa u haystaana waxa uu ahaa aniga ayaa ka wanaagsan. Xaasidnimadu sida oo kale waa dembigii koowaad ee Ilaahay lagu caasiyey markii dhulka la yimid. Qaabiil walaalkii Haabiil waxa uu dilay gabadhiisa oo ka qurux badan darteed. Ha yeelan sifooyinka ay ku astaysnaayeen Ibliis iyo Qaabiil, kadibna ha odhan waxaan ku jiraa tartan. Maya saaxiibow, gudaha ayaad ka gubyahantoonaysaa maadaama ay qayrka badhaadhe heleen, adiguna aad ka qatan tahay. Qalbigaaga si wanaagsan u daryeel, si wanaagsan u nadiifi, si wanaagsan u daahiri. Bisinka u qabo wax kasta oo wanaagsan oo dhiggaa ka aragto dheh maasha Allah. Irsaaq kasta oo qayrka ay heleen kuna raali noqo waxa uu Rabbiga kuu qoonteeyey. Wax ka baxsan ma soo helaysid xitaa haddii noloshaada oo dhan aad tartan ku jirtid. Nabadiina saaxiib.